بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج gaaraynu ku eegayno marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sahre Cumar Xasan ayaa oo ay wehliyaan xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale ayaa deeq waxa ay gaarsiisay hooyo Soomaaliyeed oo dhawaan magaalada Muqdisho ku umushay 4 carruur oo mataanayaal ah iyadoo 3 kamid ah carruurtaasi ay ka saqiireen hooyadaasi isla markaana maanta ay deeq gaarsiisay marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya deeq lacag iyo cunto isugu jirta. Jawaahir Barqab gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir oo halkaasi hadal ka jeedisay ayaa u mahadnaqday marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Marwo Sahre Cumar Xasan sida ay ugu heelan tahay adeegada bulshada Soomaaliyeed. dhammaan waxaan salaamayaa inta nasiibku u yeelatay inay munaasabadan qiimaha badan ka soo qayb gasho sharaf ayay noo tahay maamada marwada madaxweynaha Maama Sahre Xasan Cumar xildhibaanada qaranka maamulka gobolka Banaadir haweenka ku dhaqan caasimadda waxgaradka qaybo ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha sharaf ay noo tahay inaan maanta booqano carruurtan maamada marka ugu horeysa waxaan uga mahad celinaynaa isku xirka bulshada ka warqabka qofka masaakiinka iyo dhibanaha waxaan leenahay Maama Sahre aad ayaad ugu mahadsan tahay mid waxaan leenahay maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan gudoomiyaha degmada iyo konsolka waxaan uga mahad celinaynaa sida sharafta leh ay u suurta galiyeen Ilaahay weyna ka sokow isbitaalkan inuu u shaqeeyo mar walbana ay garab taagan yihiin waxaan ognahay marxaladda uu dalka soo maray qof walba oo muwaadin waxa saaran waajib ayana waxaan leenahay maamulka gobolka Banaadir waad mahadsantihiin dhaqaatiirta agaasimaha iyo walaalaheen masaarida ah oo aan dareemi karno saaxiibtinimada Masar iyo Soomaaliya وحداردود aad ay u fogtahay waxaan kaga mahad celinaynaa waxa jira shacab badan oo dalka Masar ku dhaqan oo walaalaheena sharaf iyo karaamo ku nool la fariista ilmaha masaarida isku galaasiin lama carqaladeeyo fiisakeen lama dhaho lama dhibaateeyo sharaf ay hadana waxay noo tahay inaanay gacnaha naga laabanin waxaan isku nahay Masar marka waxyaabo badan waa dal Afrikaana waa dal Islaama waa dadka muslimiinta ugu adag ugu qiimaha badan uguna jecel Afrikaanimada iyo muslimnimadaba inay ka soo dhalaalaan waxaan leenahay waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol jazaakumullahu khayran leenahay dawladda Masar iyo dadka shacabka Soomaaliyeed shacabka Masar iyo shacabka dalka Soomaaliyana waxaan wada noqon doonaa dad walaalo ah waxaan ogaanaynaa dhakhtarka hortayda taagan wuxuu ka yimid carruurtiisii waxaan dareemi karnaa baahida qoyskiisa iyo qarankiisa ay u qabaan mana iloobi doono laakiin waxa ogaataan marwada madaxweynaha waa furaha muwaadiniinta Soomaaliyeed ee gabdhaha ah marwada madaxweynaha waa xiriiriyaha bulshada jecel Soomaalinimada abaalan idin haynaa horteedana waxaan ka qiraynaa kaagana idinkagana mahad celinaynaa shacabka iyo dawladda Masar meel walba ay joogaanba inaan u hayno abaal una gudi doono maalin maalmaha kamida waxaan rajaynayaa insha Allah maanta Soomaaliya waan kufnay waan kacnay waan soconaynaa waxa jira dad aan quruxdan iyo waxa aan qabanayna ogolayn waxa jira dad been ka abuuraya waxa jira dad xaqiraaya wax qabadka dawladda ayana waxaan leenahay Ilaahay idin caafiyo Soomaaliya maanta uma baahna waxa la yiri bil qoraxda oo muuqata gacan lagu celin karo Soomaaliya way talaabsatay dunidan la jaan qaadaynaa in allaale iyo beesha caalamka muslimiinta iyo dunida westernka inta nacaawisana waxaan leenahay waa mahadsantiin waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa aanay suurtagal noqon lahayn siyaasadda madaxweynaha haddayna furnaan lahayn hadduuna ku guulaysan lahayn xiriirka beesha caalamka suurtagal ma noqoteen dhaqaatiir masaari inay maanta Muqdisho ka shaqayso ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed haddayna dagaalami lahayn waad aragteen hadda kuwa biraha ku taagnaayeen waxay ahaayeen kuwa ku dhaawacmay ayagoo dagaalamayo waxaan quruxda iyo labiska gabdhaha Soomaaliyeed ka muuqdo oo marwada qaranku u horeyso waxaan ku faanayno ku seexano waa ciidamada waa mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa haddana madaxweynahayna ku faraxsanahay saakay inay marwaduna isbitaalka masaarida booqanayso madaxweynahayna dalka Masar uu joogo marka waxay noo tahay farxad labaad maanta waa maalin taariikhi ah waxaan dareemi doonaa duulimaadyada inaan isku booqano dalka Masar inaan tagno maamadu dadka iyadoo hor kacdo waxaan ku bogaadinaynaa qoyskaana aan ugu hambalyeynayna wixii ka saqiirana waxaan leenahay maalinta yawmal qiyaamah saqiira aqal Allah uga dhigo
mar walbana maama nagu hogaami siyaasadda hufan waana mahadsantahay marwada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Sahro Cumar Xasan oo goobtaasi hadal kooban ka jeedisay ayaa ka warbixisay booqashada ay maanta ku tagtay isbitaalka Zamzam ee Jabtay iyadoo mahadnaq balaaran u soo jeedisay dhaqaatiirta isbitaalkaasi iyo shaqaalaha isla markaana ka codsatay inay si laabaan hawsha ay shacbiga Soomaaliyeed u hayaan bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsan yihiin rag iyo dumar dhaqaatiirta iyo maxaan ku sheegaa askarta iyo dhalinyarada kulli haweenka Soomaaliyeed saxaafadda kulli dadka iskugu yimid ummadda Soomaaliyeed meeshan isugu timid iyo kuwa naga maqan intaba way mahadsan yihiin xildhibaanadeena qaaliga cid aan ka tagay cid kaleba kulli waa maaragtay insha Allah kulli aniga wadnaha iiga yaalaan dadka Soomaaliyeed waa haweenku waa runtood oo waa siday sheegayaan laakiin raguna kama maqna la'aantood ma ahaan karno mana socon karno ragga iyo dumarkuba waa isu baahan yihiin haddii maaragtay baasta la kariyo suuga lagu daray lama cuni karo marka raggani waa baastadii runta anaguna suugadii aan nahay waa isku qurxanahay marka bidix iyo midig marka intaasi waa maaragtay intaan ka dhilaa waxa ujeedadaydu waxay tahay waxaan soo booqanay maanta oo aan isbitaalka Masaarida ugu nimiday gabar Faadimo Xasan la dhaho oo 4 gabdhood ku dhashay runtii iyadu hadda waa iska niyad fiicneed waana fiicneed 3 waa ka dhimatay mid baa u nool ilaahay ha u deysto midkiina dhaladu ku jiraa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay maaragtay u caymiyo oo kaas uga kiciyo intii kale ay dhalada wax uga jiraan ilaahay maarta ka kiciyo intii xanuunsanba ilaahay maarta inuu caafiyo runtii intii la dhihi lahaa gabdhahan way dhaheen anna maaragtay waxaan hadda dhaho waa hooyanimo waan rabnaa raashinkii intaanan u keenay gabadha wixii kale oo aan maaragtay tuulay ka timiday beeralay waaye wixii kale oo aan uga gali karno degmada ay degan tahay iyo dhulka ay ka timidna waa uga gali doonaa gudoomiyihii waan u yeeray wixii aan uga qaban karno ay dhahaan markaas noo tilmaamaan tusaalahoodan raacaynaa waa u qabanaynaa haddii Allah idmo taas maxay ahayd dib u noqon mayna ilaahay idinki ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtana ma moogin anaga waxaan istaahu waxa weeyaan wax oo maaragtay hawl fara badan iyo maaragtay dawladda soo kabanaysa iyo maaragtay horumar aan maaragtay insha Allah rajaynayna caafimaad badan cimri dheer cibaado ummadana maaragtay ilaahay bogooda burcad isu mariyo insha Allah intaas rajaynayna caafimaad maama waa booqanay aad bayna maartay iska fiican yihiin isbitaalka waa isbitaal lacag la'aan siday wiilashu noo sheegeen dhaqaatiirtu noo sheegeen maxaan ku sheegaa wax dhiba kuma qabaan Soomaalidu waa la garab qabanaya waa nimankan aad ay u garab qabteen dhaqaatiirtan Masaarida ah ma hadi ha ka gaarto ma hadi ilaahay baale ma hadda iyagaan maaragtay siinayna Soomaalideena inteenan kala gurmanayso duubanayso dadaalaysa dadka bukaanka la jooga iyo bukaanada la jooga kulli maarta waanu mahad celinaya assalaamu calaykum xildhibaanada Caasha Koos oo ugu dambeyntii halkaasi hadal ka jeedisay ayaa mahadnaq balaaran u soo jeedisay marwada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Sahro Cumar Xasan sida ay shacbiga Soomaaliyeed ugu warqabto iyadoo kula dardaarantay inay sii wado dadaalkeeda isla markaana haweenka Soomaaliyeed ay garab taagan yihiin marwo Sahro Cumar Xasan maama indhayar xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed gabdhaha horteeda jooga ee sharafta badan ururka haweenka qaranka iyo ururka gobolka Banaadir iyo gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha qurba joogta walaashayda gift of the given iska socota iyo wiilkayga Saciid oo isna hay'adda ka tirsan xubnaha sharafta leh horteeda jooga maamulaha dhakhtarkan Masar oo aan nin muslim walaalkaya iyo saxaafadda oo aan jecelnahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal waxaan maanta halkan u joognaa isbitaalkan oo aan la soconnaa marwada madaxweynaha oo ah halbowlaha isku wada haweenka Soomaaliyeed tu tabaalaysan tu madax ah iyo mid aan waxba haysanba iyadoo ah hooyo Soomaaliyeed oo weligeedba taakulayn jirtay dadka masaakiinta ah waxaan leenahay gaangaambiyay guri waa haween madaxweynuhu waa madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya waa nin ragna waa geed sarawaab laakiin hooyo iyada wax walba og hooyo anagu haddaan nahay xubnaha baarlamaanka ku jira ee haweenka adaa maamadayadii ah garabkaagaan taagannahay gabdhaha Soomaaliyeedna waa kuwaanu xilka u qaadnay ee nu matalo
waxaan nahay annagu wakiilada shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan intayada ku jirta ay waxaan matalaa gabdhaha Soomaaliyeed gabadha walaashay ee Faaduma Xasan oo ayna yaro 22 sano jirta waxaan leeyahay hooyo akhriya adduunba waa la baahan yahay saddex ka siqiirta siqiir akhri Allah kaaga dhigo adigana samir fiican oo jamiil Allah ku siiya adiyadu baashiyo halkii kama baxadeeno adkana wadaamareen dadku waageeseen ما شاء الله شمسة أفكاغا أنا لغو قبي أبوانين بان لنا هاي دخاتير بانو لنا هاي وسيران لنا هاي يحيل ديبانا ولو أي نغو يريهم بيتري شمسة دكا هوريسكو تري آد بايو ماتسان تاي ما مس وسيرنا وانقبنا ولي وبرلماني وحان لنا هاي وحقارات قرينا نوليا أبوانا ونكسنو ما شاء الله وينكو انتابا ويليين وليبا دوبنا لنا هاي دوبكا هوينكا هوين لينا بالينو مجرع waxaan leeyahay maama Sahra halkaaga ka sii wad gabadha yar walaashayna gabadha kaliya oo hadda Ilaahay waxaan uga baryaynaa intaas oo islaam oo rag iyo dumar bale oo halka ku taaganay rabbi waxaan saxaabada ugu taagaynaa inuu Ilaahay gabadha yar u kiciyo oo u barbaariyo iyadana caafimaad siiyo gabadhaasi haday gabadha u kacdana waxaan leeyahay walaal ku samee بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى لا أدري كيف أعبر عن سعادتي بتشريف السيدة الأولى للمستشفى وإن شاء الله أأمل أن تستمر تلك الزيارات من السادة والسيدات المسؤولين والمسؤولات ومن كافة أعضاء الشعب الصومالي الشقيق الذي تشرفنا بخدمته منذ أكثر من 3 سنوات حيث بدأت بعثة اتحاد الأطباء العرب العمل هنا منذ الأيام المجاعة في 2011 والتي كان مقررا لها من قبل الاتحاد أن تكون المرحلية في أثناء المجاعة ولكن العلاقة الوطيدة التي ربطت البعثة بالشعب الصومالي الشقيق جعلت لزاما على الاتحاد أن يستمر في أداء عمله وتحويلها من مهمة مؤقتة إلى مهمة نأمل أن تكون دائمة في خدمة إخوتنا وأخواتنا في الصومال الشقيق. ونحن نحس من البداية أننا نعمل بين أيدي وتحت رعاية المسؤولين والحكومة في الصومال الشقيق وكافة أعضاء وأهل الصومال الشقيق لأننا نعمل دائما في خدمة الجميع إن شاء الله. ونحن نشكر السيدة التي أنجبت لنا التوائم الأربعة حتى نحظى بهذا الزخم من التشريف الكريم من السادة والسيدات المسؤولين والمسؤولات. أهلا بك السيدة الأولى في بيتك وفي مكانك وإن شاء الله نحظى دائما باستمرارية للعلاقة الجيدة التي سعدنا بتشريفكم فيها إن شاء الله. ugu mahadnaqayaa dhammaan xildhibaanada magacayga waa Cabdullaahi Muxiidiin Dhiblaaw Xayle waxaan marka hore ugu mahadnaqayaa dhammaan
marwada madaxweynaha xildhibaanada sharafta loola socdo agaasimiyaalka ciidamada qalabka sida kuwa amisom dhammaan saxaafadda waxaan leeyahay hambalyo waa mahadsantihiin waxaan ilaahay ugu baryayaa xurriyo taama dalka in lagu maro iyo nabadgelyo insha allah wayna curan doontaa farxaddan faraha badan oo ay samaysay marwada madaxweynuhu iyo xildhibaanada iyo madaxda gobolka Banaadir degmada Hodan lagu qabtay gabar walaashaya oo dhashay 4 cunug oo mataana ah ayaan booqashadaan ku salaysan tahay waxaana amaalmarintan iyo mahaddan iska leh marwada madaxweynaha Maama Sahro oo aan nagu sharaftay inaan kala qayb galno inaan la soo dhaweyno inaan la aragno iyo dhammaan taqaadiirta masaarida Soomaaliya wixii ay qabteen cuduma soo koobi karto wax fara badan bay noo qabteen waana ku mahadsan yihiin waana uga mahad celinaynaa gabadha waxaan leenahay 3 cunug baa ka saqiirtay halka kale ilaahay ha u badbaadsho inta ummada fadligeeda waxaan ilaahay uga baryaynaa tii barwaaqadaas calfata ilaahay inuu ka dhigo ilaahayna soo barbaariyo haddana waxaan u maleynayaa 2 kelmood waxaan dhahay gudoomiyaha degmada Hodan bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaam marwada koowaad ee dalka iyo maamooyinka xildhibaanada iyo maamooyinka intaba waxaan ugu mahad celinaynaa sida wanaagsan ay markastoo ugu danqanayaan dhibaatada mataqaanaa hooyooyinka kale Soomaaliyeed maamadii dhashay 4 mataana sida wanaagsan ay u soo qayb qaateen waa ku faraxsan ugu mahad celinaynaa waxa waaye maamooyinkan waxay cadeynayaan doorkooda in bulshada dhibaatadooda ay dareemayaan dhibaatooyinkooda marka farxad weyn ay u tahay noo tahay waana ku faraxsanahay maamada marwada kooda madaxweynaha iyo maamooyin kale iyo xildhibaanada intaba waana ku soo dhaweynahay darmaamada ummadda Soomaaliyeed dhaqaatiirta masaarida ah ee gacan ka geysatay ilmahan ku dhashay 4 mataanaha ah alxamdulillah shukr baa caalamiin 3 way saqirtay 3 ciyaala shafiic Allah uga dhiga gabadhan leh walaasheena waxaan ka imid South Africa ka imid shaqadeena waxa ku binaadamnimo u imaanaa meeshan iyo inaan ummadeena wax u qabano marwada madaxweynaha ma sha Allah ilaahay khayr hasiyo waxaan ugu casuuntay maanta inaan kala soo qayb galno booqashadan ay booqanaysay isbitaalkan iyo ilmahan gabadhan umushay waan ku faraxsanahay alxamdulillah waxaan diyaar u nahay mar walba inaan ummadda Soomaaliyeed wax ugu qaban lahayn saan u horumarin lahayn kooda curyaanka ee ilmaha saqiirka mustaqbalkiisa waxbarasho iyo caafimaad kulli wadanka sidii loo dib u dhisi lahaa ilaahay maxaan ka baryayaa Soomaaliya inuu ilaahay nabad nooga dhigo meel walba aan joognana inaan isku xirnaano oo mid aan noqono ana waxaan matalaan ka socdaa hay'adda Gift of the Giver South Africa 2011 2000 2011 ay soo gashay Soomaaliya markii ay dhacaysay baahidii iyo silicii South Africa shacabkooda waxay dareemayaan walaalnimo waxay ka shaqeysaa bini'aadanimada ka shaqeysaa caafimaadka iyo baahida in la daboolo baahida waa isku dayoonaa ma dabooli karno ilaaha dabooli kara laakiin waa isku dayoonaa inaan daboolno curyaamiinta ilmaha haweenka kulli inaan macnaa waxaan dabooli karno daboolno haddana maanta alxamdulillah marwada madaxweynaha markii nagu casuuntay aad ugu farxnay markaan maqalnay inay soo booqanayso ilmahan waana soo raacnay garabkeedana soo istaagnay waxaan diyaar u nahay meel walba ay ka jirto arrimahan oo kale inaan ka qayb galno oo aan ka geysano gacan ummadda waqtiga noo baahan tahay hadda waa inaan ummadeena wada shaqeyno meel walba aan joogno ayaa ummadda Soomaaliyeed ku gubaabinaya waana mahadsantiin kulli waxa la yiraahdaa Xaliimo Koronto waxaan ka imid magaalada London waxaan u hadlayaa magaca qurbo joogta special waxaan ku hadlayaa codka haweenka waxaan maanta aad ugu mahad celinaynaa marwadeena sharafta leh Marwe Zahra Cumar ilaahay subxaan qaadira inuu jisadeeda ka waraabiyo gabadhan 4 caruur meeshan ugu dhalatay maanta isbitaalkeena masaarida aadan runta ugu faraxsanahay saddexdii ka saqiirtayna inuu ilaahay uga dhigo saqiir aaqir halka xabba u kacayna inuu ilaahay uga dhigo kay ku liibaani lahayd idinkana aad u mahadsantihiin saxaafadda waa u mahad celinaya ciidanku waa u mahad celinaya haweenku waa u mahad celinaya xildhibaanada waa u mahad celinaya marwa adna waa ku mahad celiya hagaajisoy dhamaysay markay intaa habaysay hagaajisoy dhamaysay dalka horumarkiisa miyaysan ugu horeyn haweenka Soomaaliyeed markii dalkeena hooyo cadowgu soo hajuumay nabadu heelalaabay dagaalka la isku haabtay miyaysan ugu horeyn haweenka Soomaaliyeed halganka joojin mayno jeeraan himiila gaarno halganka joojin mayno jeeraan himiila gaarno
waa ku wareejinaynaa wax badan maaha caruurta halkan waxa yaala waa caano kani waa buskudkii bariiskii iyo qudaarkii waa shukumaanadii waa dharkii ilmaha yar iyo loogu talagalay halkaa waxaa ku jira qalabka caruurta nadaafadooda karaamyadii iyo alaabtii baa ku jira waxaan leenahay gabadha walaashaya caafimaad iyo cimri dheer iyadana allah siiyo mushiis xambaarta allah ka dhigo kana ajri xisanaad badan ay idinka siiyo isbada haysiin dadka qeyb gabadhaani waa gabadhii la joogtay gabadhii bukaanka ahayd runtii de waxaa maaragtay dadna tusama guddoonsiinayno laakiin caloosheenna aanu tusaynaa marka khayr badan aan idiin rajayna insha allahu maamo khayr badan aan idiin rajayna guud ahaan waxaan intaasi kusoo afmaraynaa barnaamijkeena gaarka aynu ku eegeynay marwada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo deeq lacag iyo cunto gaarsiiyey hooyo soomaaliyeed oo dhowaan ku umushay magaalada muqdisho 4 carruur oo mataanayaal ah 4taasi carruur ah ayaa 3 ka mid ah ka saqiiray halka haray lagu baxnaaninayo mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho tan iyo intaan barnaamij caankan oo kale aan dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh